عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكس صاحب يال واني هو مروهانية دمانتين واحد كدل بنا أم واحد كعسنا فيديو إن لايك سارتان موقال كيغ فيديو كيغ أم عد كيغ أم واحد أنسو جيدنا سيدات بدن وقارو صاحب هذا كله نقول عصبنا سبسكرايب كينا نقول يرجليه ساعة ونقطة صاحب هذا ما أنا والبس دي جوكتو إنه وحرنا هذا وما سنتين ولا شينا قرب استاجو موجيا وحنا يقفل أنا جينا فيديو عن لايك إيسارتو هالمرنا دي شير جريس هذا وما سنتهاي kulamadii hadda inoo soo dhamaada ayaa hal u dul istaagi doonaa daqiiqadaha inagu soo wajahan dhagaha uga xirnaa maahay wixii ra'yigaaga qaybta commentiga kooxda kubadda cagta Barcelona 3 gool iyo ebre ku garaacday LG meeshaba inay Bruni dheesho u maaday mase in Camp Nou ay fiirsatay umaad waayabana 0 shoot 0 on target inkastoo ay qaateen qaybta hore ciyaarta Rose Roberto Lewandowski wax baa laga qaban laayahay Barcelona 6 kulan ee dheesho horyaalka La Liga 5 kulan waa ay badisay ma fahmi 5 kulan aa la badiyay hal kulan aa barbara la galay 18 gool aa la dhaliyay hal gool aa laga dhaliyay 5 clean sheet ay qaadatay Marc Andre ter Stegen wax laga qaban karo malahan Roberto Lewandowski waa top scorerka horyaalka La Liga still horyaalkan ayaga hogaaminayaan birin waxaan ka war sugaynaa kooxda kubadda cagta Madrid iyo Atletico Madrid oo derbi ah haduu Ilaahay gaarsiiyo halkaas ugu gudbeynaa kooxda kubadda cagta Barcelona guushii caawa ay gaartay ceebtii ku dhacday Champions League iska soo jaftay halka aan u jeedin nimankii dhan ee Bayern ahaa ee Barcelona markii Championka la gaaray burbursanayay afartooda kulan ugu dambeysay ay kan ay leeleen horyaalkooda Bundesliga wax guul way gaar lahayn 3 barbara ah ee caawa loogu daray hal gool iyo eber lagu garaacay idin garaac Bayern adduunka u nacay halkaas ugu gudbeynaa saaxiibayaal waxa inoo soo qabataan kulankii labada sugayay ee maanta hore inoo soo dhamaaday Manchester City iyo Wolves Manchester City waxay marti u ahayd kooxda kubadda cagta Wolves laakiin caleemo qoyo laguma soo dhaweynin ayadana ma ku dhaweynin nimankii Wolves ahaa daqiiqadii koowaad ciyaarta markay marayso waxa shabaqada soo taabtay 100 milyan ayaan tan dadka ay ka shaqaysanayeen Grealish ninkaas oo macalinka ceebtiisa ama dhaliilihiisa asturayo oo in badan saxaafada horteeda xitay ka lahaa wiilkaygu uu soo laaban doonaa suga gool dhalin inuu wax ii caawiyo inuu jawaan gool ii dhalin ninka uma kan soo lahaa daqiiqadii 57 minute markay marayso asaa shabaqa soo taabtay gool oo caawintiisa lahaa Kevin De Bruyne wax yar markay sii socoto waxa haddana shabaqada gaaray gool magafaha Erling Haaland ninkii ay ugu jecel yihiin inay ku hadaqaan taageerayaasha Manchester City anna waxa u baxshay cadow ciile Erling Haaland oo u saxiixay Manchester City 14 gool xilli ciyaareedkan waxa lagu leeyahay boqolkii kulan ama 90kii kulan oo dhamaan uu saftay goolasha uu dhaliyo hadii uu sheego waa bixisa Erling Haaland wax laga qaban karo ma lahan waxa lagu leeyahay ninkan waa mucjiso red card ay qaateen Wolves Nicky Grealish waxa lagu leeyahay maanta wuxuu ku qabsaday heer wuxuu gaaray uu ku qabsado man of the match ka ciyaarta Kevin De Bruyne oo 2 gool caabiyay iyo Nicky Erling Haaland oo gool dhaliyay waxaan leeyahay xidig ugu fiicna garoonku ahay maadaama red card lagu qaatay goolkii muhiimad ahaydna Man City uu siiyay man of the match ka ciyaartii maanta waxa qaatay Nicky Grealish sidaas si ka wacan oo ahaadaan rajeynaya in kulamada soo socdo garabkan marka lagu saaro iska jabsa adiga sheekada halkaas kuma sii ekaanine daqiiqadii ama 2 gool iyo eber marka ciyaarta half-time lagu kala nastay Man City markii soo iskugu soo laabtay ciyaarto dhan waxa la wareegtay kooxda kubadda cagta Wolves isma badheenin Wolves 9 nin ku dheelayso run ma sheegayo musabeen Wolves ciyaarta markii laga soo laabtay si waxay u dheelaysay another level ee 9 nin ku dheeloon isma dheheen si qurux badan ay u dheelayeen goolku baa dhalaneen ma ahane mar walba waa ay weerartagaan ilaa daqiiqadii 60aad oo ninkii Philip Foden gool oo caawinteeda u lahaa gool oo ay ka soo wada shaqeeyeen Haaland iyo De Bruyne oo isku soo taagay cirib ahaa uu dhal ninkii Foden ahaa goolkiisa labaad oo xil ciyaareedkan uu shabaqa soo taabsiyay ninkan Champions League oo koonkiisa furtay haddana goolkiisa ugu horeeyay ee horyaalka ayuu dhal ninkii Philip Foden hadda qaldanahayn waa isixi kartaa mase wuxuu ahaa Grealish ninkan xil ciyaareedka goolkiisa ugu horeeyay dhaliyay iga soo sax hadda wax qaldo dadka isixi lahaayaatiin saaxiibayaal marka waxa la yaaban yahay oo dadka iyo ummadda ay la yaaban yihiin waxa ay tahay in wax ka yar 7 kulan horyaalka Premier League ay ku dhalisay 11 gool waxay ceeb u tahay ama waxa shakil gelinaa lagu leeyahay dadkii horyaalkan soo maamuli jiray Mohamed Salah waa nin aad iyo aad u wanaagsan Son Heung-min waa ninkii sanadka hore la soo qaaday gool dhalinta horyaalka Premier League Mohamed Salah Son Heung-min Harry Kane oo daldalin jireen gool dhalinta horyaalka Premier League waxa ay la dhici jireen xilli ciyaareedka ama seasonka Premier League inay dhaliyaan
23 gool 20 gool كوي 20 gool لا 24 gool تضرب كلن إلا ضلي 24 gool معناه وحي صاصع يبقى وين وإيرلين هالاند نين كان ماشى صار وكيله وكبريا بيو لحنا كبرك لجا نين كان بحي وكطوغا ولا لحنا مرك لجارو بحي سان كدرن كدريوا مركا يعني محل وليه هاي محمد صالح الجول وليه هاي نيكي ها ركتج مالامس حدقي هوري مانشستر يونايتد oo u dheelo ay sheegay kooxdan kubadda cagta Fulham asag 5 gool leeyahay ka saaba Rombo ilaa berkum soo hoomidoo soo dara dhacayaan way soo dadaalay horyaalka bilow waay laakiin Erling Haaland wax laga qaban karo ma lahan dadka rikoorada horyaalka Premier League aruuri waxay ku dhahayaan in 4 kulan horyaal Premier League la dhaliyo qofkii ugu dhaqsiyaha badnaa xitaa wuxuu ku dhaliyay ilaa 14 kulan horyaalka Premier League markuu dheelay marka ninkan leeyahay Erling Haaland rikoorada horyaalka Premier League yaalay aad iyo aad ayuu cadaadiqada uga dhigayaa maalin walba rikoor u dhiminaa Sergio Aguero haduu soo jabiyo kan uu jabiyo wax la yaab leh waay adiga alcamuun hogaanka horyaalkiisa caaw waxa loo yeynay kooxda kubadda cagta Manchester City biri 8 saac bar markii ay tahay waxa dheelayso kooxda kubadda cagta Arsenal hadii Man City ay kala wareegto ama jawaab degdeg ay ka bixiso Gunners waan arki doonaa waxay la dheelayso kooxda diriska ay yihiin Bamford ay waliba marti u yihiin Arsenal waa arki doonaa kulankaas wixii ka soo kordha hadii Manchester City hogaanka horyaalka Premier League ay hayso still gool dhalintana ayaga ayaa haya Erling Haaland ayaa wuxuu ku hogaaminaa 11 gool still caawintan waxa hogaaminaya ninkii ahaa Kevin De Bruyne caga dahab 8 gool ayuu waxa lagu leeyahay caawiye xil ciyaareedkan maxaa ka fili kartaa war ninkan Jesus iyo Raheem Sterling dhibi jireen maahane ninkan awal buuxuu ahaa soo dadkaas haysto oo 18 gool wixiisa gool dhalin jiray hadeertaana ninkii aan ugu jeclaa Premier League ee ahaa Steven Gerrard kabtiisa balagashanooyaabo 200 iyo inta ku qaadatay inta Gerrard ku qaadatay ma 500 oo kulan markuu soo joogo 92 caami sameeyay Kevin De Bruyne wuxuu ku sameeyay 297 kulan oo ku sameeyay asna in uu intaas oo macna 290 intuu uu assist oo sameeyo marka wax absolutely waay hogaankii caawa ilaa iyo waxaan ku dhahay gool dhalintii ilaa ay caawinta in Man City ay la jiifanayso dadka horyaalkan jooga meel ay aadeen ma aqaan waxa soo dhan waxa idin kaga daran saaxiibayaal ama waxa kaaga sii daran Erling Haaland dad badan oo ceebeena Manchester United ka gool badan yahay Chelsea ka gool badan yahay Fulham ka gool badan yahay Wolves ka badan Newcastle ka gool badan yahay 7 kooxood oo ka gool badan yahay ayaa jirto mideeda kale waxa lagu leeyahay isfahanka Akanji iyo Diaz ka dhaxeeyo waa wax absolutely fantastic ah still waa unbeaten xil ciyaareedka Manchester City hal mar loss ama guul daro soo ma gaarin Pep Guardiola wiilashiisa Champions League labadooda kulan way soo badiyeen horyaalka hal mar barbara ay galeen waxay ku socdaan si performance next kulanka ku xig waxay la dheelayaan Manchester United oo ayadana si adag loo training gareeyo oo ciyaartooyda haystaan bisha inagu soo aadan labadeeda derby Manchester ayaa daawan doontaan waa arki doonaa Erling Haaland oo aad dalbaday Manchester United ina gool ka dhaliyaan jeclaha tirxil ciyaareedka markaa nagu soo biireysay aan aragno kooxaha waaweyn balshaqadooda ina soo taabadid sida United sida Liverpool sida Chelsea sida waxaan ku Spurs oo kale kooxaha daafaca galo waa arki doonaa wixii alay kale ka soo kordha adikana saaxiibayaal waxaan leeyahay walaashiina garab istaaga ilaa gabagabada muuqaalka hadana la gaartay videoga like share comment wixii ra'yigaaga aad u mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaah